taliyihii qaybta ee gobolka saaxil Allah u naxariistay gaashaanle Cabdirasaaq Yuusuf Casayr ay koox dablay ay ku dileen deegaanka Biyooley oo dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Berbera ayaa dilkaas foosha xun waxa ka hadlay beesha uu ka soo jeeday marxuumku ee ku dhaqan degmada Og ee gobolka Saraar waxayna baaq u direen xukuumadda Soomaaliland inay jawaab cad ka bixiso dilkii taliyaha qaybta Bilayska ee gobolka Saaxil gaashaanle Cabdirasaaq Yuusuf Casayr iyagoo ka hadlaya hadalladoodii waxa kamid ahaa sida دابا بكون تمانتا دعري واتي رجدي عاد مقشة نك جرا وجرا يا نوين قحمتا خير كدري وحنمولي يعني بس يسوحنا إن بدنا قيادة ومقريني هقبل علينا يا وأنا الكدو لي هاي وحوا مقرينا اسمه جرين مقرتي ما أنتنا وحندورنا أرنت هالك كدعري إلا ما أركتها الرجال وجرينا نوجستي wax laga qabtaa waa ka xunahay oontaana cunayna waa indalba ku rooyahay ma laqi karo aad bay noogu foolxun tahay ergalayska bay naga daran tahay ninkii garanaya waa garanaya ninkii aan garanaysa garan maayo waxa jirta hadii madaxda laga soo galo arinta way ka foolxun tahay arrin waxaysan ma madaxda dalka ee Soomaaliland ba madaxa laga guraya waxa weeye maxaa ka dambeey doona halkana waa joogan ragana laayay kibirka ku dilay halkana waa joog taa lagu deena qoriska ma dilin arinta waxaan ka codsanaa degdeg Soomaaliland wax uga qabato waan codsanaynaa hadii kale waxba ka qaban si degdegana waan doonaynaa xaway xamaama ma rabno wax kale noo habno ragga aan u garanayna isku deegaankana meesha warda ku noolahay haday maanta madaxdii ka soo galay oo naga soo galay dawaayirkeeda waxay ka dambeeyay Allah ayago waxaanu leenahay si toos ah oo degdeg ah oo naqaysa wax looga qabto waxaan leeyahay taliyaha Cabdirasaaq Yuusuf Maxamed Maxamuud ilaahay naxariistii jannaha sii isaga iyo inta la dhaawacay staafkiisina ilaahay caafimaad degdeg ah sii arimaha noocaas oo kala ah marka ay bilaabmaan waxa weeye halka la iska galo dawladda laga galo iyadoo shacab loo eegin ama reer loo eegin hadii halka laga galo oo lagu badbaado waxa weeye maalinba mid soo qabo qorta jaq marka waxa weeye waxa ka codsanaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ama dawladda xukuumadda aan ku codsanaynaa uu hogaamiye Maxamed Axmed Maxamuud Silaayo in si degdeg ah gacan bir ay ku soo qabato ragga ururka kooxda ah ee shuftada ah ee argagixisada ah ee taliyaha sida xun u diray iyo staafkiisa u laayay in si degdeg ah loo soo qabto oo gacan bir lagu qabto iyadoo aanan anagu hanjabaad iyo waxba dilana midna aan oranayn oo aanu la simanay dilka taliyaha aanu ummadda reer Soomaaliland aanu la simanay si degdeg ah wax loo qabto kan waxaan uga dirayaa fariin cidii dishay waanu garanaynaa cidii dishay annagoo ah qoyskiisii iyo qaraabadiisii waanu garanaynaa taliyaha cidii dishay ee ka dambeysay ee dilka geysatay foosha xun leh waan fahansanay waanu garanaynaa waana ognahay cidna anagu ugaashka toonmayno dawladna ugaashka toonmayno cid kale aan ugaashka toonayna ma jirto waayo dawaabay dileen laakiin waxaan u sheegaynaa inaanu jawaab cad ka bixin doono Colonel Cabdirasaaq Yuusuf Maxamuud oo ku magac dheeraa Casayr taliyihii gobolka Saaxil ee shalay ku geeriyooday gobolka Saaxil waxaanu leenahay cidii dishay waanu garanaynaa waxaanu ugu baaqaynaa anagu cidna waashtoon mayno sida ragga hore sheegeen waanu maqlaynay raggii lahaa habeen saddexaad bay ragooda ayaa la hadlayay garcas bay haay TV-ga soo fadhiistay waxay yiraahdeen inanka caynaba garadag iyo cilaf way ka yimid lagu xukumi maayo tan waxa weeye daraf ila daraf Soomaaliland cid lama kala leh hadii se la kala yeesho warkeeda waa la helayaa ama halkan isku ilaahan ciidii ninkaasi ka dhintay isagoo ka dhintay jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasto maxay jamhuuriyaddu damqayso haddana ilaahan baan anagu nahay marka aayadeen lagu xukumi maayaan inamada ka yimid garadag iyo ceelaf weli iyo caynaba دوركيني وعديستين ترى لا يدين لما هرين وحيدان برساب يوم ماي عندما وصوتي أو الله أورن هذا الباكت بربراي أريكا وكتشتين
وري ياسين بالدهب تلفزيون كعالمي Star TV مقالة